السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشي نصرو oo dib u soo laabatay waxaa idin leeyahay waa soo laabtay barnaamijyadeena arrimaha bulshada oo maaragtay wiigiiba hal mar aan idila wadaagi jiray halkooda ayay kasii soconayaan cawada waxaan rabaa inaan maaragtay idila wadaago qiso dhab ah ee ka dhacday wadamada aan ku noolnahay Yurub mid kamid ah sababta aan qisadan ama sheekan way noqon kartaa idil wadaagayo waxay tahay problemada maaragtay community-geena Soomaalida haysta ay hoos imaaneysaa markii ay kala tagaan waalidka Soomaalida inta badan waxaan ku fashilanaa maaragtay inaan ilmaha aan isla korino oo waalidiinta Soomaalida maaragtay ay wada shaqeyn buuxda ee isla sameeyaan ayagoo kala tagay aad iyo aad ayay maaragtay dhinacaas aan ugu liidanaa sidaas daraadeed ayaa maaragtay sheekadan aan rabaa maaragtay inay waa sheeko aad u xiiso badan oo bulsho ahaan maaragtay u noqoto wacyigelin waxna ay ku qaataan sheekadan waxa waaye gabar la yiraahdo Asli iyo wiil cawaale la yiraahdo ayaa isguursaday kuna nool wadamadan Yurub mid kamid ah Asli iyo cawaale waxay isku dhaleen 2 caruur ah wiil iyo gabar markay isku dhaleen Asli iyo cawaale way isfahmi waayeen waxay isjijitaanbo waxay go'aansadeen inay kala tagaan markii ay kala tageen Asli iyo cawaale qof walba wuxuu yiri meelaan rabay roob ma iigu daay horta cawaalena wuxuu yiri qayladii Asli iyo buuqeedii mi dhaafay aslina waxay tiri cawaale qooqdiisii iyo intee ka dhacday iyo problemkiisii ma igala tageen sida inta badan maaragta dhacdo anaga kulay Soomaaliyana way is ognahay cawaale boorsidiisii oo jiitay albaabku ka booday asigoo labadaas cunug oo dhalay wax qorsho ah iyo wax plan aan Asli ulo imaano Asli ay abaayo ani adiga maadaama aan kala tagnay ilmaha waxaan rabaa inaan kula korsado haday dhaqaale tahay haday maaragtay waxbarashadooda tahay caafimaadkooda noloshooda waxaan rabaa sidii shalay aan ugu jirina ugu jiro laakiin adiga maaragtay adii ogolaato oo sidii markaas aan isku korin laba qof oo kala tago ajaanib aan kala nahay sideen maaragtay aan isku waafajinaa maba oo dhihina cawaale waxaan ku iri boorsidiisa oo jiitay albaabku ka booday Aslina intay cawaale u yeertay ma aysan dhihin war cawaale miyaha ani adiga waxa waaye hada waa kala tagnay ilmahan waxaan rabaa inaad ilmahaada ila korsato sideed rabtaa maaragtay inaan ani adiga maaragtay ilmahan aan isku korino oo aan isku caawino oo aan ilmahan maaragtay u noqono hooyo aabo oo ilmahooda maaragtay dartood u noqdo 2 qof oo maaragtay wada shaqeyn buuxda ay ka dhaxaysadeen u noqon karnaa teamwork ma aysan dhihine waxay tiri ayadana waxa waaye sidii maaragtay inta badan hooyooyinka Soomaalida waa hooyooyin aad u karti badan amaan badan ayaa halka idin ka soo gudbinaya wiilasha waxa igu soo tufaane waxay tiri dhaxdan xirana ilmahayga ana korsanayo hooyo aan kor oo ilmuhu korsato waxyaabo fara badan oo kaleetana way jiraan marka Aslina waxaan ku iri sidii ayay waxaan ku iri Asli waxay maaragtay bilowday maaragtay inay ilmaheedii maaragtay uu iska korsato iska haysato cawaale markii maaragtay ayaan la joogo ayuu wuxuu soo wacay Asli assalaamu calaykum Asli ii waran ilmaha seeyihiin Asli iyadoo xanaaqsan oo qalbiga ka gubanayso oo rabin maaragtay inuu cawaale ilmahan iyo noloshoodii waxaas oo dhanba macnaha waxay tiraahdaa waa fiican yihiin waa markii ugu fiican tahay marka qaarna taleefanka ma ka qabatabo wuxuu waqtiga isguray Asli maaragtay ilmihii la daala dhacdo cawaalana waxaan ku ilmaha korkaas maaragtay sidii TV-ga maaragtay idaacadaha marka la soo dayo ilmihii maaragtay oo kala socdo oo ilmihii wax dhaqaale ah wax mental sibood oo ilmaha maaragtay noloshooda waxbarashadooda waxba uusan ka qayb qaadanin cawaale waxaan ku iri waa ismeelayo waxaan ku iri nolol kale oo aas ilaa ma ogtahay waxa waa inta badan Soomaalida hadii maaragtay ay guur nimanka Soomaalida si u badan yihiin kama walwalaan maaragtay in nolol kale ay sameeyaan ilmo kala dhalaan macnaha mas'uuliyadda saaran wax weyn kama soo qaataan waana macnaha problem nagu badan anaga bulshadeena Soomaaliyeed
wuxuu waqtiga isguro cawaal noloshiisa iskala daala dhaco. Ilmihii waa weynaadeen. Gabadhii ugu rooneed ayaa waxay bilowday maaragtay iskuulka marooba inay maaragtay horta waxay bilowday inay hooyada weydiisay tirada hooyo asliye aabe cawaal waxaan rabaa inaan la xiriiro. Aabo waxaan rabaa inuu iskuulka igu soo booqdo. Ilmaha maaragtay aniga galaaska la dhigta aabayaashooda u imaado mararka qaar iskuulkay ka wadaan. Aniga waxaan rabaa saas camal aabahay inuu ii sameeyo. Asli hadda waxaan ku iri waa qof buuxde. Cawaali u buuxda ayada ilmaha ma ka fikirayse. Waxay bilowday maaragtay inay tiraado aabaha aaba fiican maahan. Aniga wax walba kuu sameynaayo. Aniga wax walba kuu ah. Yacni ma rabta asli inay qirato ilmahan gabadha inay aabaheed u xiistay oo asli hooyo dhahaysa ma ahan hayo hooyo wicida u wacd iska daa wixii bilowday maaragtay gabadhii inay maaragtay ay aabihii ku caayso maaragtay si markaas ayadoo isdhahaysa maaragtay aabaha ha nacdo ama maaragtay yeesan kugu soo sheegin sida maaragtay waalidiin badan ay sameeyaan. Laakiin asli wixii ilowday ilmahan maaragtay inay mar walbo ilmaha inaysan kaligeed aysan dhalin ee lala dhalay. Sidoo cawaalo u iloobay inuu laba cunug dhalo oo mas'uulka yahay ee ilmaha asli kaligeed aysan dhalin. Marka waxay sheekada socoto gabadhii yareed waxay bilowday inay iskuulka maaragtay inta badan waa aragtay iskuulaadka ilmaha waa la weydiiyaa fikirkooda sida ilmo cunug murugaysan. Gabadhii markii macallimadii wareysatay waxay dhahday aniga aabahay aan rabaa inaan maaragtay uu xiriir ila sameeyo. Hooyaday aabahay waa kala tageen. Aabahay ma ila soo xiriiro. Hooyaday markii aan weydiiyana macnaha way xanaaqaysaa. Macallimadii waxaan ku dhahay contact teacher-ka ahayd asli waa loo yeeray. Meeting-kii lala gala asli waxaa lagu yeeray asli taleefanka cawaale iyo adresskiisa wixiisa dhan waxaa leeyahay meeshaan ku qor. Waa muhiim cunugan maaragtay inuu wuxuu dareemayo loo gudbiyo. Marka saasaan maanta kuugu yeernay asli waxaan ku iri waxa waaye sidii inuu adduunka ku soo dumay. Markay guriga imaatay iska barooratay waa waree ilmahayga aniga aan soo korsaday oo kaligay aan soo korsaday maanta igu dhahay aabaheena rabnaa. Asli waxaan ku iri ilmihii hortooda inay ku ooyso maaragtay baroorata ay bilowday. Asli waxay meeshaas maaragtay ku barooratay maaragtay ilmihii hortooda wax walba ay ku tiraado. Dhinaca kale macallimiintiina howlahoodii ayay bilaabeen inay maaragtay cawaale ay maaragtay mail iyo message u qoraan si oo maaragtay cawaala maaragtay loo keeno miiska wada hadalka. Sheekadu way dheer tahay. Episode-da maaragtay number 1 maanta waxaan ka dhiganaynaa waxay noo joogaysaa cawaale oo markii asigana oo mailkii macallimiinta u direen helay uu qaatay maaragtay inay asli dacweysay oo asiga xanaaqsan asli soo wacay ee ku yiri asli waxaa ka xun tahay noloshayda ka xun tahay nolosha harta inay iga baabi'iso maxaad ii dacweysay sababtay maaragtay aniga macallimiinta iskuulka oo gabadhaada ay dhigato maxay iigu soo direen email ay leeyihiin waxa waaye waa inaad shiran ku qabanayna weligeeba lama soo raadsan jirin adiga ka dambeeyo ilaa cawaala asiga ma ogtahay maskaxdiisa waxa ku qufulan ma ogtahay inay asli cadow ku tahay. Marka sheekadeena cawalkaas inoo joogaysaa isbuuca dambe insha Allah ay ku dhaafin. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar channelka waxaan ku dhahay siin share gareysayaan saaxiib badan u helno. Haddii aad hore ila joogtana aad iyo aad u mahadsan tahay. Hadda sheekadan waxaan ku dhahay waa sheeko waxaan ku dhahay aslan wa faslan community-gana Soomaalida kusoo biishubanayso waxaan ku dhahay week walbo ilaa ay ka dhamaanayso nala soco. Khayr iyo caafimaad aan idin rajeeyo meel baad joogtiin. Waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan. Kulli aniga habeen ii tahay laakiin waqti walba idin tahay waxaan idin leeyahay wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.